والله بالله شو دعية So we start to when feedback said yes. ilaahay ha shaafiic caafimaad iyo caano sarxasiye waxaa 24 saac la soo dhaafay saameyn baraha bulshada ku yeelatay fanaanada caanka Shaadiye Sharaf xanuunkeeda haddaba Shaadiye Sharaf xanuunkeeda waa nooc maxaa si xanuunkan loogu sheegay inuu xanuun halis hayo maadaama lagu la tacaalay dhakhtar kamid ah dhakhaatiirta ugu waaweyn magaalada Muqdisho haddaba fanaanadan oo dad badan oo social media isticmaalo YouTuberaha u badnaadaan ay u dirayeen in loo soo duceeyo haddaba muuqaal ayaa nigaga soo diyaariyay iyo arrinka Shaadiye Sharaf muxuu yahay maxaa xanuunka lagu sheegay halkan ay kaga bogan doontaan ugu horreyn waxaan ka codsanay saaxiib inaad channelkeenan xog bixinta wararka subscribe ku samaysid muuqaalkan na like saartid si gaar dad badan una duceeyaan fanaanadeena Shaadiye Sharaf haddaba muuqaal yar oo laga soo duubay inta ay dhakhtarka joogtay ee waa kan la daawo haddaba muuqaalkaas waxa kaga bogateen oo ay dhigna ku aragteen in fanaanada Shaadiye Sharaf oo jiifta dhakhtarka ugu waaweyn dhakhtarka ee Gargaar International ee magaalada Muqdisho ku yaala haddaba fanaanadan ayaa lagu soo booday kadib markii dhakhtarka loola cararay haddaba wali dhakhaatiirta gargaarka hospital ka howlgasha ee magaalada Muqdisho ayaa ku sheegtay in laga baaray xanuunka safareenka ee COVID-19 maadaama adduunku uu la yaabayahay xanuunka COVID-19 ee bilowmay haddaba maadaama xanuunkan halista COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay caalamka oo idil badanaa caalamka imika taxadarkan joogno dhammaan adduunka oo dhan wuu xidhay laakiinse gudaha Soomaaliya wax xirtaan iyo runtii lagama sameyn waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaa in Ilaahay xanuunkan haysta COVID-19 dunida oo dhan ka saaro iyo wixii muslimiinaba haddaba soo kale in aad u soo duceysaan fanaanadeena Shaadiye Sharaf in Ilaahay caafimaad taam siiyo xaggan hoose commentigana aad u soo qortaan ducada aad ugu soo duceysaan haddaba annagoo bahda xog bixinta wararka isku duuban waxaan leenahay ilaahay xanuunka ka dulqaado caafimaad ha ugu bedelo haddaba dhammaan tim xog bixinta wararka intaas ayaan ku soo afmeeranaa muuqaalkan kaga soo diyaarinay Shaadiye Sharaf aan kaga hadlaynay haddaba waxaan codsi naga ahayn saaxiibayaal inaad muuqaalka markasta like saartaan si gaar dad badan channelkan subscribe tiraahdaan because of waxaan marnaa wadadii aan ku gaar lahayn 100 oo subscribe Allah idin sharfayaan leeyahay saaxiibayaal markasta sida wacan u soo badanaysaan karaama ay mudantiin tirada soo badanaysana ruuxantii waxaan la soo dhawaada saaxiibayaal waxaad kale oo aan halkan codsi ah inaad igala soo xiriiri kartaan Facebook iyo Twitter iyo hadday tahay Instagram ba in ay ku qorantay Xamse Reyga haddaba halkaas ay noo bilan insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibayaal